KNN. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo muddooyinkan aan dadweynaha la hadlin ayaa xalay waxyaabo badan oo in laga maqlo la sugayay daha kaga rogay munaasabad lagu soo xiray kalfadhigii afraad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. munaasabadda waxaa madaxweynaha marka laga soo tago goobjoog ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo ku-xigeenadiisa ra'iisul wasaare Khayre iyo xubnaha wasiirada xildhibaano iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. madaxweynaha oo sida loo bartay qaatay khudbadda ugu dambaysa ee munaasabadda ayaa waxa uu soo hadal qaaday khilaafka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya mooshinka laga gudbiyay 9kii December ee sanadkii hore ceyrintii ergeygii qaramada midoobay iyo arrimo kale. madaxweyne Farmaajo oo aan horay uga hadlin mooshinka maalmo gilgilay siyaasadda dalka ee xildhibaano isaga ka keenay laga qabtay bishii hore ayaa waxa uu sheegay isagoo kaftan u cuskanaya in gudoomiyaha golaha shacabka uu kala hadlay tirada mooshinka iyo cidda ka dambaysa laguna wargeliyay in ay diyaariyeen koox lagu sheegay qabyo balse markii dambe uu qabyo noqday sida uu sheegay. ka waatan marka kaftanka meeshaan galaysaa gudoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay gudoomiyaha kaftameena waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yiri way hor yaalaan mooshinka waxaan ku yiri see u egyahay wuxuu yiri balaan kugu soo celiyo warqadii saas u rogi way ugu soo celiyo wuxuu yiri numberkaas weey oo yaa ka dambeeya waxa ka dambeeyo dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxaan qabyadaas la ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib uu fiiriyay wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhamaadka 2018 waxaan ku yiri marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yiri waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yiri khalad kalma ku jiraa waa isla ognahay waxaa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri wuxuu yiri saxiixa waxaa ka maqan dateskii oo waxaan ku yiri see dateska qofku uu ku iloobay hadduu qofka seexay see ku iloobay waqtiga uu seexay waxaan ku yiri haye maxaa kaloo ku jira wuxuu yiri dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yiri marka waayahay gudoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motive muxuu yahay maxaa laga danleeyaa waxaan illa waaba sheegtay waa qabye wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabye ninkeeda dhameystira waxaan ku yiri waayahay waa dhabi qabye ninkeeda dhameystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 khilaafka ka dhaxeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee golaha aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka ayuu sidoo kale ka hadlay madaxweynaha waxana uu sheegay inuu la mid yahay kan dawladda iyo maamul goboleedyada balse xalkeeda uu ku jiro waxaan rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqo ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxa loo baahan yahay dib u heshiisiintooda inaan bilaawno duu Ilaahay yiraahdo waxaan hayaa warqad ee aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqaynta golaha shacabka sidii maxaan ku yiraahdaa dawlad goboleedyadii ay shaqada nooga joojiyeen anaga marka hadda dhexdeena weeye waliba waxaan u galeynaa gudaheena wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeena Soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo hore u dhacday inaan ka shaqeyno sidii isugu soo dhawaan lahaayeen go'aankii dawladda Soomaaliya ay bilowgii bishan dalka kaga ciirisay wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay inuu yimid kadib markii wakiilku sheegay in Muqdisho aysan ahayn Soomaaliyana aysan ahayn Muqdisho isla markaana ay dawladdu diidaneed in la dhex galo khilaafka kala dhaxeeya maamul goboleedyada iyadoo ay saas tahay yaa waxa noo yimid ergeygii qaramada midoobay oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladaas kala taagnaanshaha ah waan u sharaxnay aan ku niri Soomaali hadaan nahay annaga heshiina dhexdeena intii rabtaan ugu qaadato ma ogolin inay cidna soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeelay waxaan ogahay intii rabta ha qaadato haddaan nahay Soomaali halka annagu nagu jiraa annagana heshiinayna
cid isku keen khasbaysa ma laha cid damaanad noo kala saxiixaysana ma laha hadday damaanad macno leedahay horaana loogu kala saxiixay welina dhibkii weli qaar ka mida waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay annaga dhexdeena inaan damaanad isku noqonno oo dhexdeena aan ka heshiinno cid walbana aan u sheegno annagaa iskale hawlaheenna annagaa heshiinayna annagaa waala ah taasaa keentay ninkaas odagaa markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yidhi muqdisho soomaaliya maaha soomaaliyana muqdisho ma aha arrintaas arrin aan ka caroonnay ahayd oo aan wanaagsanayn oo sii xoojinaysa runtii differenciga farqiga u dhexeeya dowladda dhexe ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddaba intaas waxaa ka dambeeya hadalkayaan kusoo gabagabaynaya taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda ay naga sugayso oo ah annaga in nalaga sugaayo inaan dadkeenna isu keenno kow annagaan iska bilaabno dhexdeenna wax alla wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeenna iska daaweyno iyadoo ay saas tahay yaa waxaa maqasheen wax la yidhahda mooshin oo qayb ka mid ah khilaafaadkana haysta mooshinkaasi wuxuu ahaa runtii mid xoogaa yar ummadda soomaaliyeed argagax geliyey annagoo dhanaan runtii aan la yaabnay inkastoo hadda meel fiican aan taagannahay federaalka iyo dowlad goboleedyada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in kalfadhigii afraad ee xalay la soo xiray uu ahaa mid ay qabteen shaqo badan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in sanadkan ay howlo badan qaban doonaan barnaamijka ka baxa KNN ee kalamaan ee lagu soo bandhigo hadba xaqiiqooyin ka jira ee dhinac weliba leh sida looga hadlay dastuurka dalka oo weli qabyo ah muddo badanna hawshiisa ay socoto ayuu gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheegay in sanadkan hawsha ugu badan laga qaban doono markii ay isu soo noqdaan kalfadhiga shanaad runtii hal kelmad baan oo dadka dareenkoodii oo dhan taabatay waxay ahayd midda kalamaan ka dhawaajisay oo dhinaca dastuurka ku-meelgaarka oo hadda ku jira dib u eegis arrinkaasi aad u muhiim noogu yahay kalfadhiga dambe haddii alla idmo waxyaabaha noo yaallo waxaa ka mid ah in dastuurkii oo dib u eegista lagu sameeyey la ansixiyo markaa diyaar uu noqdo afti dadweyne diyaar uu noqdo sidaasi oo kale shuruuc badan oo hadda xukuumadda gacanta ku hayso aan rajaynayno bilowga kalfadhigan in naloo soo gudbiyo uu ka mid yahay sharcigii doorashooyinka asagana waxaan rajaynaynaa shaqooyinka ugu horreeya oo baarlamaanka uu qabanayo inay noqoto gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdilaahi ayaa munaasabadda ka maqnaa waxaana kalfadhiga afraad uu ahaa mid labada gole ee baarlamaanka soomaaliya midba uu mar furmay marna xirmay